kulanti wanaagsan khayrta sida tooska noola socotay meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhawaataan warbixinadeennan xogaha dunida ee degel kasta. barnaamijkeennan waxaad ku dhegaysan doontaan tirada Soomaalida ee loo xidhay TPLF oo sii kordhaysa. Addis Ababa wararkii ugu dambeeyay dagaalka dalka Itoobiya, guulaha ay gaadheen ciidamada uu hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed, iyo wararkii ugu dambeeyay qorshayaasha ay sheegtay Itoobiya inay ku fashilisay Tigreega ee ay ku dagaalamayeen. maxaa ka jira xogahani oo ay ka mid yihiin dhaqdhaqaaqyada ka socda magaalada Jigjiga ee wado maamulka dowlad deegaanka Soomaalida. waxaa sidii caadada inoo ahayd nagala qaybgeli doona oo nala falanqayn doona Siraaj Aadan Xasan oo ah muwaadin ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaalida oo ku sugan Tiridhaba, in badanna falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka Itoobiya. Turaabi soo dhow marka hore bal waxaad ka warantaa wararkii ugu dambeeyay ilaa hadda dadka Soomaaliyeed ee loo xidhay inay ka tirsan yihiin TPLF inta aan ka ognahay. wareen aad iyo aad baad mahadsan tahay. kolay dadka la xirxiray way jiraan, sababtoonaba loogu soo gabado kuwa la leeyahay waa TPLF baatiin iyo kuwa la leeyahay argagixisaatiin al-shabaab. waxaasoo dhan marka la isku daro waa mashruuc gudaha laga abuurayo oo ujeedadiisu tahay dadka mucaaradka ku ah gudaha ee ka soo horjeeda nidaamka maanta jira dhaliilaya in lagu qabjabiyo iyo in lagu banaysto si xuquuqdooda loo laalo. dad shacabahoo kale oo iyaguna Tigray ah oo la iska xidhay oo lagu qancinayo qoomiyadda Xabashida, iyo kuwa la leeyahay waa al-shabaab oo laga soo qabtay gobolada oo iyagana la rabo dawladda federaalka in laga gado oo la yiraahdo al-shabaab bayna soo weerartay, adayna in laga dhigo tifiyada laga sii daayo ama qaarna sirdoonka Itoobiya lagu wareejiyo. marka taasi si ay u keento in xukuumaddu ayna hadda xagga Addis Ababa iyo dagaalka dhinaca ka socda in xoog u saarin oo la yiraahdo idinku dhinaca xuduudda difaaca guud ahaan ujeedooyinka dadka loo kala xidhiidhayo dhinacyadaasay kala noqonayaan. waayay dadkan la xidhay hadda la sheegay inay taageerayaan TPLF ee Soomaalida, maxay tahay sabab ay ku taageeri karaan TPLF iyadoo TPLF ay ahayd maamulkii ugu dambeeyay ee xukuumadda Itoobiya oo xabsiyadii ay dadka ku ciqaabi jirtay la xidhay markii uu yimi Abiy Ahmed iyo madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar. walaal TPLF taageeraysa ma jirto, laakiin deegaanka xaqiiqda wax walba waa the reverse, waa sida dadka loogu sheegay si ka duwan. hadaa deegaankeena ka maqasho TPLF baa cid lagu xidhay ama TPLF baa la taageerayaa, kaliya tawaadad leh aynu tashano oo aynu ka wada hadalna danaha Soomaalida. ala kulli xaal waa xaqiiqdii beentii iyo waxa ishaya iyo xaqiiqdii. marka waa dad fikirkooda wanaagsan lagu target garaynayo, deetana waa in loo helo mindi lagu gowrici karo. mindidaasina waxa weeyaan waa shaambad in lagu dhufto, shaambadaasina waa TPLF. marka waa dad damiirkooda cabirayo oo le maanta marxaladda Itoobiya aan ka tashano. qolyahan kalena waxay leeyihiin maadaama annaga lafteedu aanu ka midnahay xisbiga oo la dagaalamayo, lamaba hadal qaadi karo xisbigaas iyo nidaamkiisa inay u dhamaatay, cidii soo hadal qaada waa TPLF. marka waxa ka jira meesha wax noocaas ah. san ognahay dowlad deegaanka waxaa ka jiray muddo dheer dhibaatooyin badan baa ka jiray oo maamulkii hore uu hogaaminayay Cabdi Maxamed Cumar lagu eedeynayay gaar ahaan dadka ka soo horjeeda. waxaana la aaminsanaa in isbedel uu yimi markii uu madaxweyne Mustafa yimi. maxaa isbedelay haddii dadkii sidii oo kale lagu xidhayo kuwa ka soo horjeeda? wallahi wax badan oo isbedelay oo ka ahayd in Cabdina la xidhay Mustafana uu yimid oo lafna ay nabad qaadatay. maanta dadka wax lagu weeraro oo muhiim u ah inay jirin ma garan karno, laakiin kaliya tamasha waxa ka socda weeyaan in awoodii kursigu lahaa in haddana loo adeegsado halkii dadka looga adeegi lahaa asalba qofka haddii kursiga uu fuulay in ummadda ugu adeego ilaa iyo inta uu sharaf leeyahay uu kursiga ku fadhin karo dadkuna ay jecel yihiin. waxay noqonaysaa inuu adeeg u bixiyo. haddii laakiin ujeedadu ay tahay inuu kursiga ilaashado, dee cid kastoo kursiga ka soo ag wareegta ama lagu xanto ama la yidhaahdo fikirkaa way ka duwan tahay, waxay noqonaysaa in la xidhxidho. marka taabaa keentay in isbedelkii uu hana qaadi waayo. marka wax isbedelay oo muhiima ma garan karayno oo keliya taa in dadkii iyagoo nabad iska yihiin ay dawladdu abuurayso xaalad amni darro oo dadka xuquuqdooda ku banaysanayso inay ku laasho kuna layso. dad baa leh fursad wanaagsan oo aad u wanaagsan buu haystay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Cagjar maadaama uu la kulmay maamulkii uu horeeyay oo iyada aysan jirin jabhad hubaysan oo dagaalamaysa oo xukunka qabtay maadaama ONLF oo kale ay hub ka dhigeen. ma ka faa'iidaystay ayaan dhihi karnaa madaxweyne Mustafa?
ma guud ahaan fursadda lagama faa'iideysanin waa markii saddexaad ee fursad noocaas ay soo marto ummadda Soomaalida in laga faa'iideysto iyo looma dhawaanin waxaaba la sii abuuray tafaraaraqii iyo kala qaybsanaantii iyo dhibaatooyinkii la abuuray ayaa kuwa kale oo xintan lagu sii darayaa oo miisaaniyadii dawladda iyo awoodii dawladdu lahayd oo dhan waxa la isugu geenayaa in dadka qabiil loo kala qaybiyo in fikirro kala duwan la abuuro marka waxyaabo aan jiri jirin oo dadka hadda ka hor ayna shaambada aan jiri jirin oo cusubun baa la samaystay kama faa'iideysanin anagu waxaan ahayn dadkii taageeray wax badan la qabtay garab socday qofkana bilaaadmigaana marka ugu horeysa waa in la taageero waayo annagu qayb kama naqaano ruuxa markaa la arko qaab socodkiisa ayaad kolka ku diidi kartaa kadib markaan aragnay qaab socodkan inuu sax ahayna waxay noqotay inaan dib uga istaagno oo dhahno sidani sax ma aha ilaa anagina lagu targalgaraysto marka dambe fikirkayga xorta ahaa iyo nidaamkii iyo isbedelka qaabka loo afduubay inaan ka hadalno ay noqoto aniga diidantaa iyo wax kale aad u jeedaa marka laga tago jigjiga iyo dadka lagu xidhay ilaa hadda inta loo geeyay ma jiraan dad kale oo Addis Ababa iyo lagu xidhay oo lagu eedeynayo in TPLF ay taageerayaan dadkan badan oo la sheegayo in maalmihii ugu dambeeyay ee dawladda Itoobiya ay ku xidhay Addis Ababa magaalooyin badan baa horta dad lagu xidhay Dirdaba lagu xidhay Addis Ababa iyo Dirdaba ugu fara badan meelaha dadka lagu xidhay marka dad fara badan oo Soomaaliya ayaa ku jira dadka lagu xidhay Addis Ababa inkastoo hadda magacaantoodii aan halkan ka list gareyn karin oo computerka ay ku jiraan dad fara badan oo Soomaaliya laakiin dadka la xidhay waa dad Tigray u badan cidda qoomiyadda kale ee soo raacdana waaba Soomaali waxa soo raaca Tigrayga xagga tirada marka la eego magaalada Addis Ababa waa tahay hadda toddobaadda laga joogay markii ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ku biiray furimaha dagaalka ilaa hadda guulal aan ka hadli karno oo waaweyn ma jiraan oo ciidamadiisu ay soo hooyeen ilaa hadda guushii la filayay wadanka dhan aqoon-yahankiisii dhaqaalihiisii waxgaradkiisii ra'iisul wasaarihiisii qoriga la qaatay marka waxa la filayay wax badan oo aan la ogeyn inuu soo bixi doono oo isagu og yahay una doonaya marka dagaalka guushiisa in isaga ay ku suntanaato maanta waa maalintii lixaad marka awoodda meesha taala marka la arko keliyata waxa soo baxaysa dagaalkan inuu ahaa dagaal docka weerara meel yar oo la yiraahdo Jifra ayay qabsadeen magaalo la yiraahdo iyo meel yar oo kale oo tuulo ah marka taasna wax lagu faani karo maaha military ahaan strategy ma laha laakiin dagaalku ujeedadiisu waxay ahayd laba arrimood inuu noqdo dagaal docka weerara iyo rogaal celin xagga culeysna laga soo saaro TPLF dhinaca xagga xabashida Laalibala iyo Sokota weerar baa laga soo qaaday way difaaceen marka waxaad moodaa in qoladan ay doonaysay in xiriirka ay kala jaraan oo kombulka qabsadaan si xiriirka maqale iyo kombulka ay halka u kala gooyaan taasina ilaa hadda ma hirgelin loomana dhadhawo marka wax badan awoodda la isticmaalay iyo meeshii ugu dambeysay garaafku gaaray markaan eegno iyo maanta oo toddobaad la dhihi karo wax badan oo soo kordhay oo loo socobtumo ma aragno laakiin soo lama dhihi karo waxay joojiyeen ciidamada Itoobiya hadda xawliga ay ku socdeen TPLF marka loo eego markii ay qabsanayeen Kabolje iyo Dhazi oo ay si xawli ay ku socdeen taas la isku ma diidana lama dafiri karo waayo awoodii dhanaad ee wadanku way soo ururtay waxayna isugu tagtay laba meelood iyaga laftoodu de ma rabaan wadankii inuu burburo oo qorshe in la hagayaad moodaa in iska yaacaan ma rabaan khasaaruhuna inuu yaraado marka awoodoodii in xawligii uu istaagay shaki kama jiro meelihii laba meelood baa la isugu geeyay oo istiraatiiji ah xaggan milay damacsanaan inay qabtaan marka khasaaruhu soo yaraaday in dawladdu inta go'doonto abiyina meesha uu ka cararo khalkhalku bato tii marka awoodii dhanayd alitariya ha noqoto anfar ha noqoto ciidanka ha noqoto waa la isugu geeyay marka awoodoodii iyo xawligii inuu yaraaday shaki kuma jiro laakiin waa dagaalka fiiskii ugu dambeeyay baa la oran karaa wareegii saddexaad ugu dambeeyay weeyaan baan dhihi karnaa marka kaasina sidii kuwii hore uma socon karayo uu ka taxadar badnaanaya sidaan u arko inkastoo aan anigu military ahayn waa gartay marka laga yimaado TPLF waxaa jira jabhad Oromo ah oo ay isbahaysi la samaysteen jabhadaasi maxay tahay horta muhiimadeedu jabhadaasi waxay tahay sidaad ogtahay ururkii la oran jiray Oromo Liberation Front markii uu nabadda qaatay saddex qaybood buu kala yeeshay qayb waxay tidhi annagu qalin baan ku dagaalamaynaa qaybna waxay tidhi annagu waxa weeyaan qori baan qaadanaynaa oo dib u qaadanaynaa qaybna meel dhexe ayay istaagtay marka qaybtani waa qaybtii tiri waan dagaalamaynaa oo waxay la baxeen Oromo Liberation Army bay la baxeen waa qayb kamid ah marka ururkii dagaalamayay waxayna yiraahdeen anagu dagaalka waan sii wadaynaa TPLF ta ka hor bayna dagaalka bilaabanay dagaalamayeen marka aan qiimeeyno Oromada Abiy Ahmed taageero intee lag ayuu ka haystaa oo qoomiyadda uu ka soo jeeda
كل دقميد أورمض ويسكا فربضان تاي دتكنا مركو فربطو تفرار قوس ويسكا فربطا مركا تاجرada uu abiy haysto waqtigii hore aad bay u yarayd laakiin hadda maadaama ilidkii iyo dadkii farabadan oo oromada uu talaabo ka qaaday qaarna la laayay qaarna la xidxiray dad farabadan ismaamulkii oromiyana uu gacanta ku hayo dad farabadan oo iskaga qasban ama ka cabsanaya ama manaafacaadka dawliga ugu xilanaya jira laakiin wali awood farabadan oo mucaarado la dheelsan karin oo wadanka gudihiisa ku jirta iyo qeyradii kuwa mabda'ooda cadiisan oo farabadan oo guusha iska eeganaya oo markuu liica sugayana way jiraan awood aad u farabadan baa ka soo horjeeda waxa la oran karaa hadda 60% way ka soo horjeedaan baa la oran karaa hadda inta taageersan ilaa 40% uma ku qiyaasi karayna dawladda Itoobiya hadda waxay joojisay in dagaalka ay ka hadlaan guud ahaan warbaahinta dalka Itoobiya horeyna wixii ugu weynaa ee lagu amaanayay waxay ahayd ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu dib u fasaxay warbaahintii iyo macaaradkii iyo markii uu xukunka qabtay hadda ma dhigi karnaa Itoobiya waxay ku laabatay sidii lagu yaqaanay ee cadaadiska warbaahinta lagu hayay waa sida weeyaan waa xuquuqda aadamaha lagu tubanayo mid kale marka meesha xaqiiqda taale la rabo in dadka laga qariyo indhaha la qabto wax Itoobiya ku cusubna ma aha waa wax caalamka hore uga soo dhacay dabeecadda Itoobiya lagu yaqaanana waxa weeyaan dadka in goor walba been loo sheego marka Itoobiya waxay aamintay oo dadka lagu yiri waxaan inagu socdaa dagaalkani wax dhababa ma aha waa media bad ka dhageysanaysaan dadkii marka waxay qaateen ka dawlad ahaan in propagandada aad kor loogu qaado oo mas'uuliyiinta ay kor u qaadaan oo ra'iisul wasaarihi baa baxay maanta waxaanu qabanay halkan aanu guul ka gaadhnay marka taa bedelkeeda waxay doonayaan oo kaliya iyaga propagandadooda in la maqlo laakiin xaqiiqda jirta on the ground-ga taala in dadku ayna fahmin loona bandhigin dambina laga dhigo waxaa jiray shalay iyo warbaahinta Itoobiya waxay baahinayeen in ciidamo Eritrean ku sugan dowladka dhanka Tigray ay helaan hogag ay ku aaseen hub Tigraygu haddii ay jiraan guulo laga gaaray iyo fashilaad lagu keenay hubka TPLF maxay tahay sababaha ay wali u sii wadaan gulufka coladeed taasi waxyaabahan waxay jira meeshan horta film baa ka socda kulli aanu waxaan filayaa Itoobiya waxa ka socda in qoladan Hollywood-ka ay u baahan doonto ama Mareykanku inay u baahan doonaan film ka sameyn doonaan marka waa film ka mid waxyaabaha socda iyo propagandada marka maalin waa in kolba la yiraahdo waxa la helay waxa la qabtay marna meel baa la qabtay markan kalena hub baa la qabtay waxa sheeganaya waa isla iyagii oo cid kale oo sheeganaysa ma jiro sawirro iyo one way information caalamka maanta kama shaqeeyo one way information baa shaqeynaya marka waa qayb propagandada ka mid baan filayaa muddo dheer Soomaaliya waxay ku eedayn jirtay in Itoobiya ay tahay meesha laga soo abaabulo dhibaatada loo geysto dawladda Soomaaliya maalmahan waxay isbedelay in Itoobiya iyaduna ay sheeganayso in laga soo abaabulay safiiro Mareykanka ku sugan Muqdisho oo kamid yahay Dolan iyo Moto danjiri hore Mareykanka iyo ay wadeen afkambi ka dhana dawladda ma dhihi karnaa waxay yimi maalmaha isbedelay ها ده مالمها متقنا هرتا دتك مالمها إلهي بدتك أو قيبنا مركا دي أدوغا الظلم السمايسو أديكنا الظلم يو كلا وكوكو دعي أما أرجوسي هلاقو معنايو أما نفسه هلاقو معنايو مركا مالمهين يسبدلين وينهم موقتها